shirkan jaraa'id ee uu ku qabtay xarunta madaxtooyada ee maamulka Hirshabelle ee magaalada Jowhar madaxweynihii ay sheegeen qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka maamulka Hirshabelle in xilkii madaxtinimo ay ka qaadeen mudane Cosoble ayaa ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ku eedeeyay inuu horseed u noqday afgambi fashilmay oo uu sheegay inuu ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle. ra'iisul wasaare Khayre inuu yahay ninka ka dambeeya afgambiga fashilay ee maanta Jowhar la isku dayay in si boob ah kursiga lagu qaato. waxaan ognahay Khayre dhaqaale ayuu ku soo bixiyay, waxaan ognahay annagaanan garan oo daacad ahayn muddo 5 bilood ah ku dhawaad 4 bilood ah yani Khayre waxa uu hortaagnaa dhaqaalihii Hirshabelle lagu taakuleynay ee dawladdii ka horeysay hoos u soo galo. subaxa aan anigu ka soo degayo magaalada Jowhar habeenka ka horeeyay waxaan ognahay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka ee ay xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle xil ka qaadeen shirkii uu la galay dhaqaalihii uu soo dhiibay. laakiin waxaan leeyahay Khayro waxaad ka shaqeynaysaa waa afgambi, adiga ku fadhiya kursi aad u jilcan, adiga ay Soomaali ku aragtaa afgambiga aad isku dayayso. waxaan ognahay sida aad la soo hadlayso, waxaan ognahay sida aad u dhiirigelinayso, waxaan ognahay sida aad uga shaqeynayso in Hirshabelle la burburiyo. Hirshabelle adigu ma aadan dhisin, adigana ma burburin kartid, mana burburayso. mudane Cosoble ayaa dhanka kale magacaabay gobol cusub oo ku biiraya labadii gobol ee lagu unkay maamulka Hirshabelle kaas oo lagu magacdaray Shabeellada Sare, waxaana uu tilmaamay in caasimadiisu ay noqon doonto degmada Buulabude ee gobolka Hiiraan. wareegto madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle kadib markuu arkay rabitaanka shacabka ku dhaqan gobolka Hiiraan kaasoo ah mid muddo aad u dheer soo jiray, kadib markuu garwaaqsaday inay tahay waajib dastuuri ah inay dowladda ku shaqeyso rabitaanka shacabkeeda, kadib markuu wada tashi dheer in muddo ah baa la sameeyay xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan asagoo ilaalinaya waajibaadka dastuuriga ee ka saaran guud ahaan shacabka ku dhaqan dowlad goboleedka Hirshabelle iyo awoodaha buuxa ee uu siinayo dastuurka ku meel gaarka dowlad goboleedka Hirshabelle wuxuu go'aamiyay sida soo socota. 1 maanta oo ay taariikhdu tahay 17 bisha 8 2017 waxaa gobolka Hiiraan loo qaybiyay 2 gobol oo kala ah gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Sare. 2 gobolka Hiiraan wuxuu ka kooban yahay degmooyinka kala ah Beledweyne, Feerfeer, Matabaan, Farlibaax, Ceel Cali, Halgan iyo Moqokori, waxaana magaalo madax u ah degmada Beledweyne. 3 gobolka Shabeellaha Sare wuxuu ka kooban yahay degmooyinka kala ah Buulaburde, Maxaas, Jallaqsi, Buqa Qable iyo Burweyn, waxaana magaalo madax u ah degmada Buulaburde. haddaba waxaa la farayaa dhammaan hay-adaha dawliga iyo maamulada jira inay u howlgalaan dhismaha maamulka gobolka cusub ee Shabeellaha Sare. wareegtadan waxay dhaqan galaysaa markuu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle wana saxiixay. waana mahadsantiin. dhanka kale mudane Cali Cabdulaahi Cosoble ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya uusan ku waafaqsanayn go'aankii dhexdhexaadnimada ahaa ee ay ka qaadatay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan wadamada khaliijka. inaan imaaraadka carabta annaga xiriirka naga dhaxeeya mugdi gelinaa waxay la mid tahay mustaqbalka iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed annagoo mugdi gelinay. waa walaalaheen nagama mudna, intayna garab taagnaayeen waa ognahay, intayna saacidayeen waa ognahay, intayna tareen waa ognahay. annagana waxaa waajib nagu ah inaan gudno abaalka. abaallaawayaal ma noqon karno. waxaa haddana xaqiiqo ah shacabka dalka Qatar marka la isu geeyo waxaa ka badan Soomaalida maanta
joogta dalka Sacuudi Carabiya.